السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام دمانتين أصحابتي دقالق ميل كستا أدونك أكجوكتين أهلا وسهلا كسو هذا فائزز وول ميل كستو أجوكتين وحارجينا دمانتين إنا كنا بدي عافمات قبتين سو دواد ولا لهي مانتو حانو هايا كريم iyo tonerkiisa كريم marka waxa waaye anti aging oo wajiga yareynayo shad u sameynaya yani wajiga waa jiidaya gadaal u celinaya wajiga wuxuu ku siinaya baby oo yar oo maasha Allah kareemkan wuxuu kale u fiican yahay meenta indhaha gasho labada dhinac daamanka meenta gasho yani waxa waaye kareem oo wajiga dhan jiidayo oo maasha Allah wuxuu kale u fiican yahay madowga qoraxda sababo madowga waa dejinaya oo ka qaadaya madowga oo qaleelka sababo yani wajiga ama jirka markii uu qalalo wuxuu sababa madowga sababaya madowgaasna waa ka qaadaya maxaa la dhahay nabraha waa u fiican yahay ilaa waxaan ka sameynaynaa green tea aan ka sameynaynaa nabraha wuu qaadaya iyo madowgooda wuu isla qaadaya maasha Allah kareem waxa waaye aad iyo aad wajiga ugu fiican asxaabta wajigana waa yareynaya waan cadeynaya aad iyo aad u fiican yahay kareemkan asxaabta insha Allah ka faa'iideysta dabiicina waaye wax dabiici oo guriga aan ku sameysanayno waaye soo dhawaada marka walaalahay insha Allah waa bilaabaneynaa alaabtana meeshaan ku soo diyaarsanay waxa ugu horeeyo oo asaasiga waxa waaye oo kareemka iyo tonerka aan ka sameysanayno green tea ama shaahiga cagaaran iyo waxa kale oo yaal cornflour marka af Soomaali waxa lagu dhahaa waraango iyo nasha saddexda baa la dhahaa yani nin walba soo u yaqaan waaye waxa kale meeshan yaalo khal tufaax ama English waxa lagu dhahaa apple vinegar khal tufaax marka waxa isticmaalaynaa tonerka isticmaalaynaa kareemka ma aha tonerka isticmaalaynaa iyo waxa kale inta yaalo tea tree oil kaasna waxa isticmaalaynaa tonerka iyo waxa kale meeshan yaalo vitamin E oil iyo saliidda looska waxa kale meeshan ku haysanaa cream Nivea oo isticmaalayno kareemka aan ku darsanayno insha Allah intaan waa intaan u baahanahay oo ka sameysanayno kareemka iyo tonerkaba marka hadda waa bilaabaneynaa insha Allah soo dhawaada marka hore tonerkan sameynaynaa tonerka marka waxaan ka sameynaynaa nus bakeeri oo biyo kuleel biyaha kuleelka marka waxaa la rabaa biyo karkaraya la rabaa oo aad u karkaraayo nus bakeeri aan ku shubanaynaa iyo hal xabo oo green tea marka intaas isku qasaynaa marka waxaa la rabaa inuu si fiican yani ugu qasmo biyaha green tea-ga waxaan sugaynaa marka ilaa adii uu ka qaboobayo markii uu qaboobo ka bacdi waxaan ku darsanaynaa ma wardiga marka wax yar ma laga badinaayo wax yar aan ku dareynaa oo ma wardi ama biyaha ubaxa iyo waxa kale ku dareynaa vitamin E oil hadii ay haysan oo ku oolin waxa isticmaali kartaa kapsulaadka oo vitamin E ga isticmaalaysa laba xabo camal ku darsanay kapsulka oo walaaqayna hadda si fiican oo walaaqayna si ay isku dhex galaan green tea ga ma wardiga iyo vitamin E oil ka si ay si fiican isku qasmaan jaa-is oo nooyahay hadda marka waxaan ku shubanaynaa caagaan soo diyaarsanay aan ku shubanaynaa tonerka marka waxa waaye toner maasha Allah saas sahal u oo basiid haddana wax weyn taraayo oo wajiga wax weyn u qabanayo maasha Allah waxaa jiraan gabdho isoo weydiiyeen hadda ka hor oo ay dhaheen toner maxaa la dhahaa tonerka marka waxa waaye waxaa loo isticmaalaa tonerka markii wajiga la soo dhaqdo wajiga lagu buufiyaa la in wajiga markii la dhaqo waxa waaye dulduleelka wajiga furmaayo marka tonerka wuxuu ka saacidayaa dulduleelka wajiga inuu xiro wajigana wuxuu siinayaa yani nacuum uu siinayaa dhalaalna waa ka dhigayaa wajiga liisho ka dhigayaa yani dhalaalna wuu ka dhigayaa wajiga hadii wajigaaga uu yahay wajiga saliida leh oo nabraha leh meesha anaga hadda aan ku darnay biyaha ubaxa adi waxa ku darsanaysaa khal tufaax ama waxa ku darsanaysaa apple vinegar English waxa lagu dhahaa apple vinegar marka ay ka badinayso qalka tufaaxa waxa ku darsanaysaa hal qaada ku darsanaysaa oo weyn oo qal tufaax waxa kale ku darsanaysaa tea tree oil kana ma ka badinaysid asna waxa ku dareysaa 3 dhibco ku daree ka bacdina si fiican isku qasaysaa marka saas oo jaa iskugu yahay caadi u isticmaalaysaa
tonerka isticmaalkiisana waxa waaye asxaabta markasta oo wejiga iska dhaqdid aa ku buufinaysaa, yacni subaxdii, galabtii, habeenkii, markasta wejiga aad iska dhaqdid oo ku dhaqdid face wash. waxaa fiican in tonerka ugu daba marsiisid oo ku buufisid, laana tonerka waxa waaye dulduleelka wejiga u xiraaya, wejigana maasha allah yacni wuxuu siinayaa in nacuuma iyo dhalaal iyo siinaya liisho ka dhigayaa maasha allah tonerka. haddana waxaan diyaarsanaynaa kareemka asna sahal waaye. waxaan isticmaalaynaa 2 xabo oo green tea ah ama shaahiga cagaaran. waxaa ku darsanaynaa caanaha marka caanaha waxaa la rabaa asna inay aad u karkarayaan. caanaha waxa waaye 1 bakeeri. waa dabooleynaa marka waxaa u sugaynaa adi ilaa 3 saac u sugaynaa markii uu qaboobo oo si fiican ay iskugu dhiimaan caanaha iyo maxaa la dhahay green tea-ga ama shaahiga cagaaran markay si fiican iskugu dhiimaan markaas ka bacdi aan isticmaalaynaa insha allah. waa kana caanihii hadda si fiican iskugu soo dhiimeen. kareemkan wadankan waxaa laga dhahaa asxaabta kareem shaahi bilxaliib, yacni kareem oo waxa waaye oo caano iyo shaahi, anaka caano iyo shaahi aan dhahnaa. green tea waxaan ku darsanaynaa caano oo isticmaalaynaa. marka caanaha rabtid u isticmaali kartaa caano booro, caanaha ilmaha xataa waa fiican yihiin fitamiinaadka ku badan waa u isticmaali kartaa. caanaha caadiga oo lo-da isticmaali kartaa. waxaa ku darsanaynaa 1 qaado oo nashe ah aan ku darsanaynaa caanaha. marka 1 qaado oo waxaa la rabaa oo buuxdo oo nashe ah aa ku dareysaa. kabacdina waxaan u isticmaalaynaa xamaan buqaari aan ku sameynaynaa. xamaan buqaariga marar badan aan soo sameeyay asxaabta. waxa waaye digsiga waxaa kusoo shubanaysaa biyaha marka maka buuxinaysid adiga wax yar kusoo shubanay biyaha, kadib aa baaquliga oo kareemka aa ku ridinaysaa. marka waxaa ku sameynaya dab oo gaaban aa ku karinaysaa. dabka waxaa la rabaa in la gaabiyo. kadibna kareemka waxa waaye markasta inaa walaaqida la rabaa, markasta waa walaaqaysaa. in waraangada way fadhiisanaysaa isla markii hore ka fadhiisanay. waxaa la rabaa inaa walaaqdid markasta aa walaaqdid. markaa aragtid inuu kareem noqday markaas ka bacdi aa ka dejinaysaa insha allah. bis way hadda waan ka daminaynaa. marka waxaan ku darsanaynaa kareem nivea aan ku darsanaynaa 1 qaado. adi marka kareemka markaas adi uu ku yaalo oo dabiici ah aa ku darsanaysaa 1 qaado ama lotion. kareemka markaas uu ku yaalo ku darsanee 1 qaado waaye oo kareem nivea aan ku darnay. waxaa kaloo ku dareynaa saliida oo looska. waxaa la rabaa inaad dhibic leh aa ku siisid saliida. vitamin E-gana waxa waaye wax yar aa ku dareysaa asagana maka badinaysid 2 dhibcood camal aa ku dareysaa. marka waa walaaqaynaa si fiican oo walaaqaynaa. kareemkan waxaa la rabaa asoo qandaca inaa ku shubtid aa ku ridid 1 qaado oo kareemka ah. waxaa fiican in asoo qandaca inaa ku dartid si uu si fiican ugu dhalaalo. marka anaka hadda waxaan u isticmaalaynaa makiinada u isticmaalaynaa laano kareemka nivea waxa waaye ciyow ma dhalaalo. makiinadan si fiican ugu shiidaynaa. kadibna waxaan ku shubanaynaa dhaladaas sitood jaa-iska noo ah. bis waay asxaabta kareemka hadda jaa-is waay diyaar uu noo yahay. waxaan ku shubanaynaa dhaladaas sitood oo kareem hore iyaga dhamaaday aan ku shubanaynaa. waa kaasaa maasha allah wuxuu kusoo baxay kareem naacim ah oo qafiif ah oo kusoo baxay. marka isticmaalkiisana waxaa waaye markii wejiga oo iska dhaqdid oo ku buufisid tonerka kadib aa kareemka marinaysaa. kareemka si fiican aa u marinaysaa. waxaa ku haynaysaa nus saac ilaa waxaa ku haynay 1 saac. yacni kareem ma aha lagu joogaayo oo lagu seexanayo ma aha. kareem waxa waaye wejiga jiidaayo waaye. markaa marisid isla markii wuxuu bilaabayaa wejiga inuu ku jiidmo, wejiga dhan gadaal uu celinayaa. maasha allah waay kareemkaanito. isla ogaada asxaabta qaaliga ah markaa isticmaashid waxaa ku haynaysaa nus saac ilaa 1 saac. kadibna biyo caadi iskaga dhaqaysaa.
xarjeynayaa asxaabteed qaaliga dhammaantiin inaan ka wada hesheen videogeena maanta. videoga like iyo share dhaha, asxaabtiina la wadaaga iyo ehelkiina. haddii aan ugu cusub tahay soo dhawow, gacmo furan ku soo dhawow iyo qalbi furan. fadlan channelka subscribe dheh, like iyo share, beelka on ka dhigo si video walba aan soo gelinayo aragtida ula socotid insha Allah. waxaan oo balan videoga dambe waxaan idinkaga tegayaa khayr badan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.